halkani waa idaacadda aftahan video production oo dhageystayaasha kala hadasha dhinaca YouTube-ka meel walba dunida ka joogtaan waqti wacan ayaanu idin leenahay saacadda stuudiyaha koowaad idaacadda aftahan video production magaalada Johannesburg ee dalka South Africa waxay abaaraysaa waqtigii aad dhageysan jirteen barnaamijkii arooriyaad ee subax wanaagsan anigoo Cabdillaahi Balwaana ayaa ka soo jeedinaya magaalada Johannesburg ee dalka South Africa صباح ورقص انت سريرك حنون غسرا الله كسر صباح ورقص انت سريرك حنون غسرا الله كسر صباح ورقص انت ساكا سما كتوستو تنتو صوفي الله سيات صباح ورقص انت ساكا سما كتوستو تنتو صوفي الله وبرنامجكي صباح وناكسن صباح ورقص انت سريرك حنون غسرا الله كسر صباح ورقص انت سريرك حنون غسرا الله كسر صباح ورقص انت ساكا سما كتوستو تنتو صوفي الله سيات صباح وناكسن waxaa soo iftiintay qorraxdii arooriyaadoo shaaca ka qaaday maalin cusub oo hor leh waxa wada dhaqaaqay dhammaan noolihii oo idil oo u kala dareeray kasab iyo tacliin waa la wada tilaabsaday isagoo qof walba uu maanka ku hayo waqtigu waa sida seefta ah ee inta uusan ku goyn adigu goo صباح ورقص انت سريرك حنون غسرا الله كسر صباح ورقص انت سريرك حنون غسرا الله كسر صباح ورقص انت ساكا سما كتوستو تنتو صوفي الله سيات صباح ورقص انت ساكا سما كتوستو تنتو صوفي markale kulan wanaagsan saaxiibayaal dunida meel walba oo aad ka joogtaan barnaamijkeenana arooriyada qodobada saaka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah hogaamiyaha ahlu sunna wal jamaa Sheekh Shaakir ayaa laga hor istaagay inuu ka qayb qaato shirka wada tashiga amniga qaranka ee ka furmay magaalada Muqdisho maxaa kalifay in Sheekh Ahmed Shaakir laga hor istaago ka qaybgalka maadaama uu matalayo maamulka ahlu sunna wal jamaa saaka ayanu barnaamijka ku falanqay doonaa hadduu alla idmo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa carabka ku dhuftay wada hadalladii ahlu sunna wal jamaa iyo maamulkiisa ku dhex maray magaalada Djibouti ee dalka Djibouti waxa uuna Xaaf ku faanay in ahlu sunna wal jamaa iyo isaguba ay gaareen heshiis dhaxalgal isla markaana dhawaan uu booqan doono magaalada Dhuusamareeb oo caasimad u ah maamulka ahlu sunna wal jamaa qodobada iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad saaka barnaamijka ku maqli doontaan hadduu alla idmo magacaygu waa Cabdillaahi Balwaan barnaamijkana waxa uu gaar u yahay idaacadda aftahan video production oo dhageystayaasha kala hadasha dhinaca YouTube-ka waana mar kale iyo barnaamijkii subax wanaagsan صباح ورقص انت سريرك حنون غسرا الله كسر صباح ورقص انت سريرك حنون غسرا الله كسر صباح ورقص انت ساكا سما كتوستو تنتو صوفي الله سيات صباح ورقص انت ساكا سما كتوستو تنتو صوفي الله markale kula wanaagsan dunida meel walba oo aad joogtaan gordhow waxaad maqli doontaan hogaamiyaha ahlu sunna wal jamaa Sheekh Shaakir oo laga hor istaagay ka qayb qaadashada shirka wada tashiga amniga qaranka ee ka soconaya magaalada Muqdisho su'aalo dhowr ah ayaad isweydiinaysaa waxyaabaha kalifay in ahlu sunna hogaamiyaheeda uunan ka mid noqon martidii lagu marti qaaday kulankaasi amniga qaranka looga hadlayo iyo xilli la ogyahay ahlu sunna kaalintii ay ka qaadatay la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo احترام لعان اي كلا كل ما يسو دولة فدرال كصوماليا ساكا ايانو برنامجك كفلقاي دونا بالسمرك هوري madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay shirkii wada tashiga ee ka dhacay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti oo dhex maray maamul goboleedyada galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa
waxa uu sheegay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf in guul la taaban karo maamulkiisa uu ka soo hooyey wadatashiga iyo wadahadalkii ku aadanaa isaga iyo ahlu sunna wal jameeca iyo weliba waxyaabihii la isku haystay oo la soo xalliyey wuxuu ku faanay axmed ducaale geelle xaaf in maamulkiisu dhowaan uu u guuri doono magaalada dhuusamareeb hase yeeshee ay ka horeyso booqasho uu ku tegayo isaga iyo wafdigiisa sidoo kalena wuxuu iftiimiyey ahlu sunna inay ogolaatay arrimo dhowr ah oo galmudug u leh arrin la taaban karo ama guul la taaban karo una muuqanaysa shacabka Soomaaliyeed waa kan xaaf oo warfidiyeenada kula hadlay magaalada muqdisho annagu galmudug maalmahan guul fiican baan gaaray alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ahlu sunna wal jamaa aad iyo aad baa maartay shir 10 cisho socday baa nooga socday Djibouti madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo IGAD iyo SSF kulligood ka soo yara qayb qaateen maanta guul fiican ayaan soo gaaray insha Allah ta'ala bishaan intaysan dhamaana waa soo siyaaranayna dhuusamareeb insha Allah marka waa arrin dhinaca nabadgelyada gacan naga siinaysa weeye oo awal waxay ahayd dariiq naga xiran laakiin dariiqii hadda waa dariiq uu noo furmayaa dariiqa oo ilaa Hiiraan ilaa maartay Puntland uu isku furmayaa waxaan naga xiran kaliya buulabartii beledweyne intaas u maaro baahna inaan furno ayadana waa furi doonaa si dalka oo dhan isugu furo dibka ugu weyn oo dagaalada naga haystaa waa dariiqyada xiran sida kuwa xamar u xiran yihiin baa kuwa dibadda u xiran subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi Allah siyaadshi subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi hogaamiyaha ahlu sunna wal jameeca sheekh axmed shaakir ayaanan ka mid noqon martidii lagu marti qaaday kulanka looga hadlayo amniga qaranka Soomaaliyeed isla markaana ka furmay magaalada muqdisho wajigii labaad ee shirka amniga qaranka ayaa maanta soconaya iyadoo wajigii koowaadna la soo gabagabeeyay waxaana halkaas ka hadlay marti sharaf isugu jirta Soomaali iyo ajnabi hase yeeshee dhinaca gudaha amniga qaranka waxa halkaas ka hadlay dawladda dhexe ee Soomaaliya maamul goboleedyada ka jira wadanka sida maamulka Hirshabelle maamulka Galmudug State maamulka Koonfur Galbeed maamul goboleedka Jubbaland iyo waliba maamul goboleedka Puntland waxaana gabi ahaanba meesha laga saaray maamulka ahlu sunna wal jameeca oo aan lagala hadal arinta amaanka gudaha xilli la og yahay qayb ka mid ah gobolada dhexe in ay maamulkaasi gacanta ku hayaan hogaamiyaha ahlu sunna wal jameeca Sheekh Axmed Shaakir ayaa maamulkiisa ahlu sunna waxay la dagaalameen argagixisada Soomaaliya ka dagaalantay isla markaana ay qayb weyn ka qaateen xoreynta dhul fara badan oo Soomaali leedahay oo gobolada dhexe ka tirsan iyadoo qaar ka mid ah ay gacanta ku hayaan argagixisada mayalka adag ee al-shabaab falanqaynta shirka amniga qaranka waxa laf dhabar u ah amaanka gudaha wadanka Soomaaliya waxaana lagu iftiiminayaa arrimo dhowr oo ku aadan sidii xal looga gaari lahaa arintan amaanka iyo guud ahaanba ka hortaga dhibaatooyinka argagixisada ay ku hayaan gudaha wadanka Soomaaliya hogaamiyaha al-sunna waxa uu qayb ka ahaa wafdi Djibouti ka yimid oo wada hadal la soo galay maamulka Galmudug State hase yeeshee markii Muqdisho uu yimid waxa loo sheegay inuunan qayb ka ahayn marti sharaftii lagu casuumay kulankaasi isla markaana uu noqon doono kaliya nin ixtiraam leh hase yeeshee aanan u qalmin waqtigan in laga hadlo arintan amaanka gudaha wadanka Soomaaliya hogaamiyaha al-sunna Sheekh Axmed Shaakir oo aad ugu qancay hadalka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhanka kale qaar ka mid ah taageerayaasha al-sunna waxay ku micneeyeen dawladdu in ay hor istaagayso halgankii qotada dheera ay ahlu sunna wal jameeca ka gashay gobolada dhexe iyo dagaalkii qaawanaa oo ay la gashay ururka argagixisada al-shabaab ee ka dhisan gudaha wadanka Soomaaliya amaanka gudaha markii la falanqeynayo waxa qayb ka ah in laga hadlo gobolada wadanka Soomaaliya wali ay ku amarto ku taagleynayaan argagixisada geeska Afrika iyo kooxda ka dagaalanta Soomaaliya ee al-shabaab iyadoo dhanka kale ee macquul ay tahay gobollo fara badan oo ka tirsan gobolada dhexe oo wali gacanta ugu jira in sanado fara badan ay maamulayeen argagixisada al-shabaab wali ay ka
tirsan yihiin deegaanada ahlu sunna wal jameeca hase yeeshee sheekh axmed shaakir ayaanan waxba laga weydiinin xalka ammaanka gudaha waddanka soomaaliya sheekh axmed shaakir oo laga gaabsaday inuu shirka ka qayb qaato waa shirka looga hadlayo arrintan ammaanka gudaha waddanka soomaaliya ayaa dhanka kale waxaa muuqanaya in qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda ay mar uun rajo ka qabaan in uu maamulkaasi ka mid noqdo galmudug state xilli la og yahay shuruudo adag inay hor yaalaan maamulada ahlu sunna iyo galmudug state wixii kusoo kordha ka hor istaagidda sheekh axmed shaakir hogaamiyaha ahlu sunna wal jameeca shirka magaalada muqdisho waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena soo socda waa haddii aad xubin ka mida tahay youtube-ka aftahan video production waayo youtube-kaasi oo aad subscribe tiraahdo waxaad heli kartaa macluumaadyo fara badan oo adiga kaa qarsoon hadduu alla idmo subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadsi subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi deegaano ka tirsan maamulka galmudug state ayaa weli waxaa ka jira dhibaatooyin isugu jira waxbarasho la'aan iyo weliba qaar dhinaca caafimaadka iyadoo isbitaalada ku yaala deegaanada galmudug ay aad ugu yaraanayaan dhinaca helida dawo ku filan dadka ku dhaqan maamulka galmudug state shacabka galmudug oo ay ka mid yihiin ganacsato aad u fara badan oo geyiga soomaaliya si weyn looga yaqaano ayaa weli deegaanada waxay la daalaadhacayaan dhibaatooyin isugu jira caafimaad la'aan iyo waxbarasho la'aan ka jirta qaybo ka mida gudaha galmudug state xilli aysan ganacsatada waxgaradka iyo siyaasiyiinta galmudug aynan waxba xila iska saarin helitaanka ardayda da'da yar ee ku nool galmudug waxbarasho dhammaystiran iyo waalidiinta ku dhaqan gobolada galmudug inay helaan caafimaad ku filan si markaa bulshadu ay uga baxdo dhibaatooyin fara badan oo dhinaca ammaanka waxbarasho la'aanta iyo caafimaadkaba ay isku kaashadeen iyadoo dadka ku dhaqan galmudug aynan la mid noqon maamulada kale oo ay ka jiraan waxbarasho dhammaystiran isbitaallo ku filan dhinaca caafimaadka iyo amni loo aayo galmudug ayaa ka mid a maamulada la daalaadhacaya ammaan darro musuq maasuq isqabqabsi iyo weliba bulshada reer galmudug oo ka faanta markay kasoo tagaan gobolada waddankaasi iyadoo aysan jirin jaaliyad midaysan oo galmudug ay leedahay dhanka kalena ay muuqanayaan in jaaliyad kasta oo reer galmudug ay ka faanaan dib u dhiska deegaanadooda waa maamulka keliya marka laga reebo hirshabelle ee aanan ixtiraam gudaha aynan ka jirin waana maamulka keliya marka laga reebo hirshabelle aanan wax muhiima saarin arrintan waxbarashada caafimaadka iyo amniga gudaha galmudug subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadsi subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi guud ahaan waxaan intaa kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii subax wanaagsan inta aynu barnaamijka lamida ku kulmi doonno waa cabdilaahi balwaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadsi subax wanaagsan